kulanti wacan daawadayaal halkani waa channelkeena halbeega wararka qodobada wararka ee xilligan aanu idin hayno waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Puntland oo ka digay inay dhacaan dagaalo sokeeye oo qabiil salka ku haya booliska iyo nabad sugidda Soomaaliya oo dusha loo saaray mas'uuliyadda qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne halkee ayuu marayaa gulufka ay qaadeen beesha Mudullood ee ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa intaan ku guda jirno tabinta warkeenan haddii aad nagu cusub tahay fadlan barteena YouTube-ka ee halbeega wararka subscribe inoo saar adigoo muuqaalkan like saaray isla markaana la sii wadaagay saaxiibada waa hagaag daawadayaal ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure ayaa waxa uu ka hadlay qaraxyadii gilgilay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kuwaasi oo lagu beegsaday xerada Lamagalaay oo ah xarun muhiim ah isla markaana ay ku shaqeeyaan hay'ado badan oo dowlad goboleedka Hirshabeelle ah wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dayac dhanka amniga ah uu sabab u ahaa in la qarxiyo xarunta gobolka iyo sidoo kale madaxtooyada Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan maadaama gawaarida soo gala magaalada ay leeyihiin dhowr bar control oo baara sida hadalka uu dhigay waxa Beledweyne ka dhacay amniga ayaa sabab u ahaa saraakiisha amniga Beledweyne dayac ka yimid ayay dadka ku dhinteen khaasatan booliska iyo nabad sugidda ayuu yiri qaraxa waxa uu ka soo galay buundooyinka oo uu ka soo gudbay xarunta gobolka ayaa lagu qarxiyay ayuu yiri baabuur ayaa sida uu soo socday qarxiyay guriga gobolka mid kale ayaa qarxiyay bacadlihii haddana mid kale ayaa qarxiyay iridda waardiyaha checkpoint-yada ayay soo mareen waa mas'uuliyad darro amniga sabab u yahay sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle in ujeedka Al-Shabaab ay ka leeyihiin qaraxyada ay ku gumaadayaan dadka uu yahay si hoos ugu dhaco dagaalka ka dhanka ah ee uga socda deegaanada miyiga fog ah sida hadalka uu dhigay magaalada Jowhar baabuur uusan damiinan nin nabadoon ah ama ganacsade ma soo galo in magaalada uu baabuur iska soo galo amni darrada ay qayb ka tahay waa in la baaraa baabuurta si amniga uu damaanad u helo ayuu yiri wasiirka amniga gudaha Hirshabeelle ugu dambeyntiina waxa uu ka dalbaday shacabka inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga isla markaana loo midoobo sidii loo sii xoojin lahaa dagaalka ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo uu sheegay inuu gobolkooda sii dhacayo وهاجاك داوديال markana ciidanka beesha Mudullood ee gulufka ka wada gobolka Shabeellaha Dhexe qayb kamid ah ayaa waxay ku dhow yihiin deegaano muhiim ah ururka Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee beesha Mudullood ayaa gaaray deegaanka Geelgub oo kaabiga ku haya halka loo yaqaano ama deegaanka Masaajid Cali Gaduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sida lagu baahiyay warbaahinta dawladda ciidanka hadda gaaray deegaanka Geelgub ayaa ah ciidankii ka baxay magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhan ah dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ciidamada iyo saraakiishii hogaaminaysay ayaa sheegay in ay si nabad ah ku galeen deegaankaas haddana ay ciidanku ku howlan yihiin sidii ay amniga u xaqiijin lahaayeen iyadoo uusan deegaankaasi ka dhicin wax dagaal ah ay ciidamadu la wareegeen qabsashada ciidamada dawladda ee deegaankan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo kooxda Al-Shabaab ay gelinkii hore ee shalay masaajidka Cali Gaduud deegaanka lagu magacaabo ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku soo bandhigeen dad shacab ah oo hubeysan kuwaasi oo ay ku sheegeen in ay la dagaalami doonaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee weerarka ku soo ah dadkaasi ayaa xog ay heshay caasimada online waxa la sheegay in la qasbay looguna hanjabay dil si ay shabaabka ugu muujiyaan in shacabka deegaanka ay ka soo horjeedaan ciidamada dawladda ee gulufka ka dhanka Al-Shabaab ku wajahaya deegaanadaasi dhinaca kale ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo gaadiid dagaal oo ka baxay magaalada Muqdisho ayaa ku sii qulqulaya degmada Cadalle ee dhacday xeebta gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasi oo noqon doonta xarunta laga hagayo duulaanka Al-Shabaab looga saarayo deegaano badan oo kamid ah gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud oo ay beeshani degto gulufkan ayaa waxa qayb ka ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida Cismaan Xaadoole Maxamed Cajiib iyo sidoo kale xildhibaan Abukaate saraakiisha militariga Soomaaliya oo ka hadlay abaabulka ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkooda uu ku wajahan yahay deegaanka Masaajid Cali Gaduud halkaas oo ay haatan ku sugan yihiin xooga ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ciidamada ayaa dhankooda wacad ku maray in aysan ka soo laaban doonin deegaanada ay qabsadaan ilaa iyo ay ka gaarayaan degmada Aadan Yabaal ee dhacda gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ay saldhigyo iyo goobo caafimaad oo waaweyn ay ku leeyihiin xoogaga Al-Shabaab arintan ayaa waxay ka dambeysay kadib kulan ay beesha Mudullood ku yeelatay magaalada Muqdisho kaasi oo ay ugu dhawaaqday duulaan ka dhan ah kooxda Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin dhulka ay beeshani degto kaas oo ka bilaabanaya deegaanada beesha ay haatan ku sugan yihiin dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab
وهاجاك داوديال ugu dambeyntiina madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka digay dagaalo sokeeye oo ka dhacay deegaanada maamulka Puntland. madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland sidoo kalena mar soo noqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka digay in dagaal sokeeye uu ka dhaco Puntland haddii la isku dayo muddo kororsi loo sameeyo hay'adaha dowladda ee maamulka Puntland. maamulka Puntland ayaa ah kan kaliya ee aan wax muddo kororsi ah sameynin iyada oo maamul goboleedyada kale ee dalka uu midkiiba hal sano ku daray muddada sharciyeed ee xilhaynta baarlamaanka iyo madaxweyne goboleedka. balse Puntland ayaa waxa ay uga duwan tahay in muddo xileedka hay'adaha dowladda uu yahay 5 sano halka maamul goboleedyada kale iyo federaalkaba uu yahay muddo 4 sano ah. Cabdiweli Gaas oo sidoo kale mar soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in Puntland hal mar ay muddo kororsi soo martay markaasna uu ka dhacay dagaal sokeeye. Puntland ku darsasho mar bay soo martay 2001 bay ahayd. Cabdulaahi Yuusuf baa sidaas sameeyay wixii ka dhacay waa la ogaa civil war oo uu la jeedo dagaal sokeeye bay abuurtay. waxaana uu sheegay in iminka aysan taasi suurtagal ahayn. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta sida weyn uga digaya in Puntland lagu dayo muddo kororsi haddii taasi ay dhacdan ay horseedi doonto qalalaasa siyaasadeed iyo amni xumo dhulkaasi soo wajahda. dhinaca kale Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka lagu qaban karo qof iyo cod haddii ay dowladda ka go'an tahay in ay hirgeliso doorashooyinkaasi. gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa 18 bishii September ee dhaaftay waxa uu sheegay in doorashada madaxtinimada Puntland ay ku dhici doonto waqtigeedii oo ah 8 bisha January sanada 2024 isla markaana aanu waxba iska bedeli doonin jadwalkaasi isla markaana doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto. inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxay sameeyeen muddo kororsi taasi oo laga digayo in markan ay ka dhacdo dowlad goboleedka Puntland halkaasi oo ay madaxda qaarkood ka digayaan in haddii lagu dayo muddo kororsi uu soo wajihi doono dagaal sokeeye kaasi oo ka dhasha beelaha halkaasi wada daga isla markaana shirkada ku ah dhismaha maamulka Puntland. maamul goboleedkii ugu dambeeyay ama hay'adihii dowladeed ee ugu dambeeyay ee Soomaaliya muddo kororsi sameeyay waxa uu noqday maamulka Somaliland ee madax banaanida ama gooniistaagiisa ku dhawaaqay kaasi oo 2 sano muddo ku siman u kordhiyay madaxda dowladda. guud ahaan daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo xilligan aad kala socoteen barteena YouTube-ka ee halbeega wararka xilligan waa naga inta haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar channelka oo ku soo biir saaxiibada halkan ku xiran isla markaana muuqaalkan like inoo saar adigoo share gareynaya lana wadaagaya saaxiibadaada waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan barnaamij wareedkan kiisa xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgeliyo amaana Allah.